25 November ayuu madaxweyne Farmaajo magacaabay xeerlaaliyaha guud ee qaranka Dr. Suleymaan Maxamed Maxamuud isagoo oo dalka kaga maqan safar shaqo uu ku matalayo gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka. Wadanka India ayuu kaga qayb galay shir sanadeed sanadkiiba mar la qabto waxaana soo dhaweyntiisa safaf dheer u galay senataro, xildhibaano, xafiiska loo magacaabay xubno ka socday bahda kale ee garsoorka iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan Puntland. Senator Xuseen Sheekh Maxamuud oo ka tirsan aqalka sare ayaa madaxweyne Farmaajo ku ammaanay fursadda dhalinyarada uu siiyay isagoo si gaar ah ula dardaarmay xeerlaaliyaha cusub. madaxweynaha waan uga mahadcelinaynaa in qof xirfadeeda leh khibradeeda leh oo dhalinyaro ah inuu xilkaas u magacaabo. waxaan rajaynayaa insha Allah inuu Ilaahay kula fududeeyo aadan nagu ceebeynin magaca dhalinyarada insha Allah aan laga mar dambe laga shalayn in shaqo loo dhiibo. waan kugu hambaleynaynaa, waan kula garab taaganahay. ayaantaanba baarlamaanka shaqadiisa aad buu u qabtaay oo xeerar badan baa soo baaskareynaa inaan nala ilaalisid oo aad hormuud noogu noqotid aan rajaynaynaa insha Allah. gudoomiye ku-xigeenka golaha wakiilada Puntland Ismaaciil Maxamed Warsame ayaa isna dhankiisa ku biiriyay dardaaran gaar ah xeerlaaliyaha cusub. bahda qaanuunka ama legal law society-ga baad ka madooday u tahay, rag ku soo biiray baa tahay. waxaan aad iyo aad u mahadinaynaa cid kasta oo soo jeedisay dadka dhalinyarada ah oo ninkan dhalinyarada hadda ka tag odayna ma gaarin salabaan oo kale xilka maaragtay ku soo dhaweysay xilka qaranka xilli kala guura lagu jiraa. waxaan rajaynayaa inuu garsoorka ama qaybtan hadda portfolio loo dhiibay xeerlaalinta inuu shaqo weyn ka qabto. aqoonteedna waa leeyahay, gamcihii caawinayana waa haystaa, waqtiguna waa wanaagsan yahay. Dr. Suleymaan Maxamed Maxamuud ayaa u mahad celiyay dhammaan mas'uuliyiintii ka qayb galay soo dhaweyntiisa. waxa uu ballan qaaday inuu ka soo bixi doono waajibaadka loo igmaday isagoo eebo weydiistay in xilka uu fududeeyo. waxaana ilaahay ka baryaa in xilka weyn oo aan qaaday aan ilaahay ugu guuleeyo. madaxweynaha jamhuuriyaddana si gaar ah u mahad celinayaa maadaama asaga uu gartay inuu doorto shakhsiyaad dhalinyarada xilka sare dalka u dhiibo. sidoo kale tan waxa u mahad celinayaa gudoomiyaha maxkamadda sare oo asna shaqo fiican ka qabtay garsoorka intuu joogay haddana ku sii dhex jira. waxaan rajaynayaa hadduu Ilaahay yiraahdo dardaarankii uu soo jeediyey gudoomiyaha intiina kaleeto kulligiin inaan wada qaato oo xilkaas aad dareentaan insha Allah tacaala. meel kulley doorashada la doortay waxay ahayd waxba ligu tuunsanaa macnaha in aan isbedeli doono. marka waxaan rajaynayaa insha Allah tacaala in garsoorka waa meesha ugu xanuunka badan oo qof kasta taabanaysa oo dhib badan ka jirto. marka inaan juhdigay intiisa ugu faraha badan aan galiyo. heerarka kala duwan ee waxbarashada ayuu ku soo qaatay waddanka Pakistan. waxa uu baraka noqday jaamacad ku taala Puntland. waxa uu la soo shaqeeyay hay'ado iyo ururo dawli ah iyo kuwa aan dawli ahayn sida guddiga dib u eegista dastuurka oo uu la taliye u ahaa ka hor inta aanu madaxweynaha ku magacaabin xeer uu kaga mid noqonayay 9 garsoore oo ka mid noqday December 2018 maxkamadda sare. 25 bishii tagtay ayuu madaxweyne Farmaajo u magacaabay xeerlaaliyaha guud ee qaranka Dr. Suleymaan Maxamed Maxamuud kadib soo jeedin kaga timid gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka. Cabduqaadir Ciise, warbaahinta qaranka, magaalada Muqdisho.